أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa arbaco ay taariikhdu tahay 15 bisha Rajab 1443 hijrada, 16 bisha Febraayo 2022 miilaadiga. waxaana jooga almadiina almunawara. dariiqyada uu rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inta loogu soo dhiibay uu risaalada ilaahay ugu soo gudbiyey waxaa ka mid ah qoraallo. waxaan soo aragnay inuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dadka qaarkiis qof risaalada u gaarsiiyey, qaarkoodna kooxo iyo qabiil ilaa aan ka soo aragnay siday u islaameen oo nabiga u baayaceen sallallahu alayhi wa sallam ansaarta oo ah labada qabiil oo ugu weynaa almadiina almunawara ee alkhasraj iyo al-aws. nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu ku dayay tusaale ahaan rukaana oo uu ku yiri, haddaan ku legdo ma islaamaysaa? rukaana wuxuu ahaa nin ahlulbeytka ka tirsan oo u dhashay laanta almutalib bin cabdimanaaf, oo ahaa ninka ugu xoog badan maka almukarama oo aan dhinaciisa dhulka la dhigi karin. markaasuu wuxuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam, haddaan ku legdo ma islaamaysaa? markaasuu wuxuu yidhi haa. qisadiisuna waana soo martay. rukaana qisadiisu waana soo martay. haddana waxaan akhrinaynaa qoraalada waa dhambaalada uu sallallahu alayhi wa alihi wasallam boqorada adduunka u kala diray, uguna yeerayo inay islaamaan. qoraalkan koowaad waa dhambaalka uu sallallahu alayhi wa alihi wasallam u diray hiraqal, boqorka roomaanka, iyo qisada boqorkaas iyo abu sufyaan bin xarb. alqastalaani wuxuu yidhi, rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu ka soo laabtay alxudaybiya, waa duulaanka alxudaybiya, waana sanadka 6 ee hijrada, wuxuu warqad u dhigay boqorka Rooma oo magaciisu ahaa Hiraqal, Heraclius afkooda lagu yiraahdo. markaasaa waxaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam loo sheegay inayan Roomaanku warqad akhrisan jeer ay saxiixan tahay oo shabadi ku dhegan tahay oo ku xiran tahay mooye. markaasuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu samaystay faragashi qalin laga sameeyey, laguna naqashay 3 sadar waxaa ku dhigan Muxamed, sadarna rasuul, sadarna allah, Muxamedun rasuulullaahi waay, oo markaas qoraalka ku shabadeeyey. markaasuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu dhambaalka u dhigay qaysar. waxaa loogu yeeraa boqor kasta ee boqortooyada roomaanka ka mid ah, sida annagu maanta qofkii dal madax u ah loo yiraahdo madaxweyne oo kale. qofkii masar boqor u ahna loo oran jiray fircawn. kii iiraan ama boqortooyada furus madax u ahaana loo oran jiray kisra. qaysarka ugu horeeyey waxaa magacaas loo siiyey isagoo ayan hooyadiis u dhalin si caadi ah, balse caloosheeda inta la dhambalay halkaas laga soo bixiyey, taasoo ayaana u sabab ah in dhalmada sidaas ah maanta la yiraahdo cesarean ama Caesarean
isaguna wuuba ku faani jiray oo wuxuu oran jiray inuusan isagu ka soo bixin oo uusan soo marin kaadimareenka haweenka. midka la yiraahdo Hiraqal, boqorka Roomaanka waagaas, markii qoraalka la dhigayna wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: man yantaliqu bikitaabi hada ila Hiraqal walahu aljanna. xadiidka macnihiisu waxaa weeye kumaa warqadeydan la dhaqaaqaya oo u geynaya Hiraqal oo jannada la gelinaya. markaasay waxay yidhaahdeen hadduu warqadda la dhaqaaqo oo uu gaari waayo isagoo ama dariiqa ku dhintay ama ay wax kale ka hor istaageen inuu gacanta ka saaro dhambaalkaas, jannada ma leeyahay? wuxuu sala allahu calayhi waalihi wasalam yidhi: wa in lam yasil. xadiidka macnihiisu waxaa weeye haa, jannada wuu leeyahay xataa hadduusan gaarin. markaasaa waxaa warqadda qaaday dixya bin khaliifa oo ah saxaabi jaliil ah iyo nin aad u weji qurxoon, horena u islaamay. dixya waxaa afka reer yaman lagu yiraahdaa alra'iisu oo ah madaxweyne. malag jibriil wuxuu nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam u imaan jiray isagoo leh ekaanshaha dixya. aayadda 11 ee suuratuljumuca asbaabtii ka soo degatay ayuu dixya ka mid yahay, oo nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam mimbarka saaran oo jumcaha khudbaynaya ayaa waxaa yimid safarka ganacsi ee dixya. markaasay intii badnayd majliska ka baxeen iyo masjidka oo ay xagga badeecadaha dixya aadeen. markaasuu wuxuu ula kacay meeshuu joogay Hiraqal dhambaalka u qaaday oo ahayd alqudus, siduu albukhaari u wariyey. albukhaari wuxuu kaloo kitaabuuljihaadi ku wariyey in markuu ilaahay Hiraqal ka rogay ciidanka Faris oo uu ka adkaaday ayuu wuxuu ka soo lugeeyey Xims oo uu lugeynaya ilaa uu Qudus baytulmaqdis ka yimaado, isagoo taas ka dhigaya shukrin uu ilaahay ku shukrinayo. atabari iyo ibnu cabdulxakam waxay ayaguna wariyeen riwaayado isxoojinaya oo leh Kisra boqorka Faris ayaa wuxuu ciidan u diray oo ku duulay boqortooyada Roomaanka arliga Hiraqal. markaasay in badan oo arligaas ka mid ah burburiyeen oo kharaabiyeen. markaasuu Kisra wuxuu raagsaday soo noqoshada taliyihii ciidankiisaas watay. markaasuu wuxuu damcay inuu dilo oo uu amiir kale ciidanka madax uga dhigo. markaasuu taliyihiisaasu go-aankaas Kisra ka war helay. markaasuu wuxuu sidaas ugu sheegay oo uu la saf noqday Hiraqal oo uu la heshiiyey, oo uu markaas ciidankiisa ka hor wareejiyey oo uu sidaas Hiraqal ku jabiyey oo uga adkaaday Kisra boqorka Faris oo ah Iiraanta maanta. jebintaas Kisra wuxuu ilaahay caza wajal noogu sheegay suurat Ruum bilowgeeda. markaasuu shukri ahaan Hiraqal magaaladaas Xims oo ku taala dalka Suuriya oo caasimadiisa waqtigaas ahayd ka soo lugeeyey isagoo ilaahay taas ugu shukrinaya libtaas uu Kisra ka siiyey. kiristaankuna waxay u xajin jireen oo ay ilaa maanta u xajiyaan alqudus waa baytulmaqdis, kaasoo ah xaj aan ilaahay sharciyeyn oo wax kama jiraan ah, ayadoo kacbada loo xajiyo oo ah guriga ilaahay tacaala oo Maka almukarama ay ku taalo.
ibnu isxaaq wuxuu abu sufyaan bin xarb ka wariyey inuu yidhi markay ahayd zamanka heshiiska nabadgelyo ee alxudaybiya ayaa waxaan ganacsi ugu kicitimay shaam anigoo la socda koox rag quraysh ah markaasuu hiraqal wuxuu ninka booliskiisa madaxda u ah ku yidhi arliga shaam oo idilfatash oo waxaad ii keentaa nin ka dhashay tolka ninkan waana nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam si aan arrinkiisa uga waraysto markaasuu ninkaasu aniga iyo asxaabtayda oo ghaza waa falastiine joogna nagu soo duulay oo dhammaanteen alqudus noo kaxeeyey markaasuu ibnu isxaaq xadiidka siduu ahaa u wada wariyey sida albukhaari ugu qoran oo kale iyo inta alqudus iyo inay alqudus ugu yimaadeen ayagoo la wado markaasuu hiraqal majliskiisa ugu yeeray ay ayaguna yimaadeen iyadoo ay ku hareeraysan yihiin boqorkaas madaxdii Roma taajkiisuna madaxa u saaran yahay kadibna wuxuu dhammaystiray waa ibnu isxaaqe xadiidka inta ku saabsan su'aalaha hiraqal iyo jawaabaha abu sufyaan iyo hiraqal xadiidka intiisa kale waa sidatan ana ka soo guuriyey kitaabka cuyuun اlcathar uuna dhigay alimaam alxaafid fatxuddiin muxamed bin sayid الnaas ashaafici almacruuf biibni sayid الnaasi oo noolaa inta u dhexaysay sanadaha 617 ilaa 734 hijriga boggiisa 324 abu sufyaan wuxuu yidhi markaasuu hiraqal wuxuu turjumaankiisa ku yidhi waxaad raggan weydiisaa midkooda nasab ahaan ugu dhow ninka nebinimada sheegtay abu sufyaan wuxuu yidhi markaasaan iri anigaa nasab ahaan ugu dhow iyadoo uusan ragga safarkaas ku jirin nin reer cabdu manaaf ah oo u dhashay oo aan aniga ahayn qaysar wuxuu yidhi ii soo dhowow kadibna amar ayuu ku baxshay oo markaasaa asxaabtayda dhabarkayga la yeelay waa gadaashiise kadibna wuxuu turjumaankiisa ku yidhi waxaad asxaabtiisa u sheegtaa inaan midkan hortiinna u istaajiyey si aan ninkan uga waraysto sheeganaya inuu nebi yahay idinkana waxaan isaga dhabarkiisa idin yeelay inaad ku beenisaan hadduu been sheego abu sufyaan wuxuu yidhi wallaahi haddayan ahaan lahayn inaan ka xishooday inay asxaabtaydu been igu qabtaan been ayaan ka sheegi lahaa laakiin waan xishooday oo aan runta sheegay anigoo kahanaya kadibna wuxuu turjumaankiisa ku yidhi waxaad tiraahdaa sidee buu nasabka ninkaanu ku yahay tolkiinna dhexdiisa waxaan idhi waa nin nasab fiican leh wuxuu yidhi waxaad ku tiraahdaa waa turjumaankiise hadalka uu ninkaanu leeyahay isaga hortiis nin adinka idinka mid ihi ma yidhi oo nebinimo ma sheegtay waxaan idhi maya wuxuu yidhi wuxuu yidhi uusan oran ninka ma ku tuhmi jirteen inuu been sheego waa nebige sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan idhi maya wuxuu yidhi aabbayaalkiis ma ka mid yahay oo ma ka mid ahaa nin boqor ah waxaan idhi maya
wuxuu yidhi ma dadka madaxdiisa ayaa raacay ama intooda taagta daran? waxaan idhi bal intooda taagta daran. wuxuu yidhi miyay kordhiyaan mase waa yaraanayaan dadka raacsani? waxaan idhi bal way kordhiyaan. wuxuu yidhi dadka raacay axadkoodna diintiisa ma ka noqdaa nacayb uu u qaaday daraaddeed? waxaan idhi maya. wuxuu yidhi miyuu dadka khayaanaa? waxaan idhi maya. wakhtigaanna waxaan kula jirnaa heshiis nabadeed, waana xudaybiye heshiiskii, hudnat alxudaybiya waaye. mana ogin wuxuu muddadaas dhexdeeda fali doono. wuxuu yidhi dagaal ma la gasheen? waxaan idhi haa. wuxuu yidhi sidee buu dagaalkiinna iyo dagaalkiisu ahaayeen? waxaan idhi wuxuu ahaa isweydaarsi, oo marna isagaa gacanta sare leh, marna annagaa gacanta sare leh. wuxuu yidhi waana maxay wuxuu idin amrayaa? waxaan idhi wuxuuna amrayaa inaan ilaahay keligiis caabudno oo aanan waxna shariik ula yeelin. wuxuuna naga reebayaa waxay aabbayaalkeen caabudi jireen. wuxuuna na farayaa inaan salaad tukanno, sadaqana bixinno, iyo inaan dhowrsanaanno, cahdigana aan oofinno, ammaanadana aan cidda leh u celinno. markaasuu wuxuu turjumaankiisa ku yidhi waxaad ku tiraahdaa waxaan ku weydiiyey nasabkiisa, waxaad ii sheegtay inuu laandheer yahay. rusushuna waa sidaasoo kale, waxaana loo diraa ayagoo leh nasab tolkooda loo dirayo. waxaan kaloo ku weydiiyey inuu axadna isaga hortiis tolkiinna ku hadlay oo nebinimo sheegtay isaga hortiis. waxaadna tiri maya. oo hadduu axadna isaga hortiis hadalkaas oo kale ku hadli lahaa, waxaan odhan lahaa waa nin ku dayanaya hadal hortiis la yidhi. waxaan kaloo ku weydiiyey inaad beenlownimo ku tuhmi jirteen ka hor intuusan odhan wuxuu yidhi. waxaadna tiri maya. sidaasna waxaan ku ogaaday inuusan ka sheegayn inuu dadka been u sheego, oo uu markaas ilaahay been ka sheego. waxaan kaloo ku weydiiyey inuu aabbiyaalkiis boqor ku jiray. waxaadna tiri maya. oo hadduu aabbiyaalkiis boqor ku jiray, waxaan odhan lahaa waa nin boqortooyada aabbihiis doonaya. waxaan kaloo ku weydiiyey inay raacaan dadka madaxdiisa ama kuwooda taagta daran. waxaadna tiri kuwooda taagta daran ayaa raaca. kuwaas ayaana ah kuwa rususha raaca. waxaan kaloo ku weydiiyey inay dadka raacsani kordhayaan ama naaqusayaan. waxaadna tiri inay kordhayaan. taasna waa xaaladda iimaanka jeer uu ka dhammaystirmo. waxaan kaloo ku weydiiyey inuu dadka raacay midkoodna caro uu diintiisa u qabo uga baxo oo murtad noqdo, kadibna markuu diintaas galay. waxaadna tiri maya. waana sidaas markuu iimaanku ku darsamo oo dhex galo faraxa qalbiga, oo uusan markaas axadna ka caraysiin karin. waxaan kaloo ku weydiiyey inaad la dagaalanteen. waxaadna tiri haa, inuu xarbigiinnu darandoori yahay, oo uu marna isagu gacanta sare helayo, marna aad adinku gacanta sare helaysaan. waana sidaas rususha loo imtixaanaa. kadibna ayagaa ciribta hela. waxaan kaloo ku weydiiyey
wuxuu idin farayo waxaadna sheegtay inuu idin farayo oo aad tiri wuxuuna amrayaa inaan ilaahay keligiis caabudno oo aanan wax shariik ah ula yeelin wuxuuna naga reebayaa waxay aabbayaalkeen caabudi jireen wuxuuna na farayaa inaan salaad tukanno sadaqana bixinno iyo inaan dhowrsanaanno cahdigana aan oofinno ammaanadana aan cidda leh u celinno isaguna waa nebi waana ogsoona inuu nebi soo bixi doono umase moodeen inuu adinku idinka mid yahay waxa iga soo gaaray hadday run yihiin mar dhow arligan aan ku taaganahay ayuu mulkin doonaa haddaan ogahay inaan gaari karana waan ku dadaali lahaa oo dhib kasta u dulqaadan lahaa si aan ula kulmo markaan u tagana labadiisa cagood ayaan dhiqi lahaa taasi waa dhaqan ay leeyihiin kiristaanku cagaha boqoradooda iyo inay dhaqaan oo waxay yidhaahdaan cagaha wadaadadooday dhaqaan abu sufyaan wuxuu yidhi markaas kadib ayuu dalbay oo loo keenay warqadda rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam oo loo akhriyey waxaana ku dhignaa bismi illaahi araxmaan araxiim min muxammadin rasuuli illaahi ilaa hiraqal cadiima aruumi salaamun calaa man itabaca alhudaa ama bacdu fainii adcuuka bidicaayati alislaami aslam taslam يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون xadiidka macnihiisu waxaa weeye xadiidka macnihiisa hoosaan ku sheegi doonaa haddii ilaahay idmo abu sufyaan wuxuu yidhi markuu hadalkiisa dhammaystay oo warqaddana ka soo jeestay ayaa codadka ragga hareerihiisa fadhiyey kor u qaadmeen mana garan waxay yidhaahdeen waxay lahaayeen ma garan markaasuu qaysar amar baxshay oo annaga dibadda naloo bixiyey markaasaan markaan dibadda tagnay aniga iyo asxaabtaydu oo aan keliyeysanay waxaan ku idhi arrinka ibnu abi kabsha oo uu ka wado nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam oo abi kabsha waxaa weeye awoowaha xagga hooyada nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam hore ayaana uga soo warannay arrinka ibnu abi kabsha kor ayuu ahaaday oo xoogaystay talinayaana ayadoo uu boqorka bani al asfar ahna boqorka roomaanka kaba baqay roomaanka iyo dadka yurub degan waxaa carabtu oran jirtay bani al asfar oo bani al asfar waxaa loogu bixiyey al asfaru wuxuu ahaa cays bin yacquub bin isxaaq bin ibraahim oo dhalay roomaanka iyo iraaniyiinta iyo talyaaniga oo caysu wuxuu guursaday in adeertiis gabadh uu dhalay nebi ismaaciil oo magaceedu ahaa nasma markaasay waxay u dhashay 2 wiil wiilna waxay u bixiyeen arruum waa aabbaha roomaanka talyaaniga qaarkiis maanta
intii rooma ka hooseysa dadkii roomaanka la oran jiray iyo wiilka labaadna faris waana aabbaha dhalay iiraaniyiinta marka abu sufyaan wuxuu leeyahay arrinka ibnu abi kabsha kor ayuu ahaaday oo xoogaystay talinayaana ayadoo uu boqorka bani al asfar ana boqorka roomaanka kaba baqay oo bani al asfar midabka caysa wuxuu ahaa hurdi asfar buu ahaa caddaan ma ahayn markaasaa nebigu wuxuu u bixiyey oo ku magacaabay bani al asfar sida abu sufyaan wuxuu yidhi sidaasaan waxaan ku ahaa mid daliil ah oo huba inuu amarkiisa libta helayo ilaa uu ilaahay islaamka qalbigayga ka geliyey alisraa'u waalmicraaju abu sufyaan iyo hiraqal markuu intaas wariyey ayuu ibnu sayid innaasi wuxuu yidhi xadiidka abu sufyaan waxaa kaloo ka mid ah inuu qaysar ku yiri markuu xagga nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ka waraystay boqorow makuu sheegaa dhacdo aan annagu ognahay inuu been ka sheegay boqorku wuxuu yidhi waana tee waxaan iri ayuu yidhi abu sufyaan wuxuu noogu andacooday inuu arligeenna ka baxay oo ah arliga xaramka habeen oo uu isla habeenkaasba tegay masjidka ku yaalla baytulmaqdis waa masjid ulaqsaaye oo uu haddana isla habeenkaas annaga noo soo noqday intuusan waaguba baryin wuxuu yidhi wadaadka kirishtaanka ah ee baytulmaqdisna wuxuu ku sugan yahay qaysar madaxiisa agtiisa markaasuu wuxuu yidhi wadaadku run ayuu sheegay wuxuu yidhi maxaana arrinkan ku ogeysiiyey ayaa boqorku yidhi wadaadku wuxuu yidhi anigu habeenna ma seexan jirin jeer aan xiro albaabada masjidka dhammaantood markaasay markay habeenkaas ahayd ayaan albaabada oo dhan xiray intaan ka ahayn hal albaab oo aan xiri waayey markaasaan xiriddiisa waxaan la kaashaday dadka ila joogay iyo kuwa ii shaqeeyaba markaasaan albaabkaas dhaqaajin weynay sida annagoo buur dhaqaajinayna oo kale markaasaan waxaan u yeeray najaariinta oo markay fiiriyeen waxay yidhaahdeen kani waa albaab uu ku soo kordhacay oo uu ku fadhiyo dhismahoo idil marka ma dhaqaajin karno jeer aan waa bariisanno oo aan aragno meeshuu ka yimid markaasaan labada albaab ayagoo furan ka tegey oo markuu waagu baryey aan ku soo jarmaaday markaasaan waxaan arkay in dhagaxa geeska masjidka yaalla la dalooliyey ayna ku taallo raadka meesha daabad lagu xiray waa alburaaq markaasaan waxaan asxaabteyda ku idhi xalay albaabkan uma xirmi waayin waxaan nebi ahayn nebigaasna xaluu ku tukaday masjidkeennan markaasuu qaysar wuxuu qowmkiisa ku yidhi ragga roomaankow soo ma ogsoonidin inuu ciise iyo saacadda u dhaxeeyo nebi uu ciise ina maryama idinku bishaareeyey aadna rajaynaysaan inuu ilaahay nin adinka idinka mid ah ka dhigo oo hiraqal wuxuu ahaa caalin diinta nebi ciise iyo diinta nebi muuse waxay yidhaahdeen haa wuxuu yidhi ilaahay
wuxuuse ka dhigay nin adinka kayrkiin ah ahaana adinka dad adinka idinka yar beled ahaana adinka idinka wadan yar waana raxmadda ilaahay oo uu dhigo meeshuu doono. kadibna hiraqal wuxuu dalbay warqadda nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam oo uu u soo dhiibay dixya bin khaliifa alkalbiyi oo uu dixya u dhiibay ninka busra madaxda ka ahaa oo magaciisu ahaa alxaarithu bin abi shimr alghasaani. albazaarna wuxuu wariyey inuu dixya laftiisu warqadda hiraqal gacanta ka saaray oo uu u dhiibay oo wuxuu wariyey inuu dixya yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ii diray qaysar markaasaan u imid oo aan dhambaalka u dhiibay markaasuu warqadda hiraqal u dhiibay kana uu akhristay. warqadda koowaad ee nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ee hiraqal boqolka rooma oo nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu hiraqal u diray laba goor oo kala duwan laba warqadood laba dhambaal. albayhaqi wuxuu dalaa'ilu annubuwa ku wariyey mujalladka 4 bogga 377. albukhaarina xadiiskiisa 2941 ee kitaabuuljihaadi ahna kitaabka 56aad. muslimna kitaabkiisa 32aad waana xadiidkiisa 74aad ay ku wariyeen kulligood dhambaalka koowaad ee uu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam u diray boqorka rooma ee hiraqal naskeeduna uu yahay sida tan: bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamed rasuul allahi ilaa hiraqal cadiima aruumi salaamun calaa man ittabaca alhudaa ama bacdu fainii adcuuka bidicaayati alislaami aslam taslam yuutiika allahu ajraka maratayni fain tawallayta faina calayka ismu alariisiyiina ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. حديث معنه سوحوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحي كالسعطة محمد rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam una socotaa hiraqal madaxa roomaanka nabadgelyo waxay korkiisa tahay oo badbaadaya midka hanuunka raaca oo cadaabta ilaahay ka badbaadaya. intaas dabadeedna waxaan kugu yeerayaa inaad ku dhawaaqdid erayada islaamka qofka u hogaamiya oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxamadan rasuulullaahi oo ah inaad islaamka soo geshid oo aad muslim noqotid. muslim noqo waad badbaadaysaaye haddaad islaantid ilaahay wuxuu ku siinayaa 2 ajar oo kala ah inaad nebi ciise raacday iyo inaad nebi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam raacday. haddaad islaamka ka jeesatidna oo aad diidid waxaa korkaaga ah oo lagu haystaa dembiyada dadkaad madaxda u tahay oo dalkaaga ku nool oo ah boqortooyada roomaanka oo idil. oo xadiis kale waa ku noo sheegay ina annaasa calaa diini muluukihim hadduu isagoo muslim noqdo dadkiisuna muslimay noqonayaan weye. kuwiina kitaabka la siiyeyow kaalaya oo aan isugu nimaadno wax isku mid ah oo ayan
oo ayan quraanka iyo towraadda iyo injiilkuba isku khilaafsanayn oo ay isaga mid yihiin oo ah inaanan caabudin ilaahay keligiis mooye oo aan cibaadada isaga keligiis ku gooni yeelno oo aanan ilaahnimada axad kale la wadaajin oo ayan qaarkeen qaarka kale rabbiyo ka dhigan sida yuhuuddu u tiri inuu cusayr wiilka ilaahay yahay ayna u yiraahdeen waa kirishtaanke inuu ciise wiilka ilaahay yahay oo ayan axbaarta ku raacin waa wadaadada ee kirishtaanka wadaadada yahuudde ayan ku raacin waxay ayagu hindiseen oo xalaal iyo xaaraan ah oo waxna waa xalaalayn jireen waxna waa xaaraantimayn jireen ayagoo dad annagoo kale ah hadday markaas midnimada ilaahay iyo towxiidka ka jeestaan oo diidaan adinku waana muslimiinte waxaad tidhaahdaan markhaati ka noqda inaan annagu muslimiin nahay oo xalaal iyo xaaraan waa shaqada ilaahay qof kaloo waa xalaal dhihi kara ma jiro kana waa xaaraan dhihi kara ma jiro intuu ilaahay xalaaleeyey mooye iyo intuu xaaraamtimeeyey mooye iyo nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam warqadda labaad ee nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ee hiraqal boqorka rooma alqasطalaani wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam intuu tabuuk joogay wuxuu warqad labaad u diray boqorka rooma ee magaciisu ahaa hiraqal wuxuuna ugu dhiibay isla saxaabiga tii koowaad u geeyey intuu heshiiska alxudaybiya socday ahaana dixya bin khaliifa alkalbiyi qoraalka dhambaalka labaadna waa sida tan soo socota min muxammadin rasuul allaahi ilaa hiraqal cadiimi الruumi salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacdu fainii adcuuka bidicaayati اlislaami aslam taslam yuutiika allahu ajraka maratayni fain tawallayta faina calayka ismu اlariisiyiina ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون حديثك معنه سوحاوية بسم الله الرحمن الرحيم waxay ka socotaa maxamed rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam una socotaa hiraqal madaxa roomaanka nabadgelyo waxay korkiisa tahay oo badbaadaya midka hanuunka raaca oo cadaabta ilaahay ka badbaadaya intaas dabadeedna waxaan kugu yeerayaa inaad ku dhawaaqdid erayada islaamka qofka u hogaamiya oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allahu وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إناد إسلامك سوقشد وأد مسلم نقطد مسلم نقو واد بدباديسا هداد إسلامتد إلهي وحكسين يا لبا أجر وكلا إناد نبي عيسى الراعدي يا إناد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم راعدي هداد إسلامك كجيستدنا وأديدد waxaa korkaaga ah oo lagu haystaa dembiyada dadkaad madaxda u tahay oo dalkaaga ku nool oo ah boqortooyada roomaanka oo idil kuweyna kitaabka la siiyow kaalaya oo aan isugu nimaadno wax isku mid ah oo ayan qur-aanka iyo towraadda iyo injiilkuba isku khilaafsanayn oo ay isugu mid ka yihiin oo ah inaanan caabudin ilaahay keligiis mooye oo aan cibaadada isaga keligiis ku gooni yeelno oo aanan ilaahnimada axad kale la wadaajin oo ayan qaarkeen qaarka kale rabbiyo ka dhigan sida yuhuuddu u tiri inuu cusayr wiilka ilaahay yahay ayna u yiraahdeen inuu ciise wiilka ilaahay yahay oo
oo aynaan axbaarta kur ee ka raacin waxay ayagu hindiseen oo xalaal iyo xaaraan ah ayagoo dad annagoo kale ah. hadday markaas midnimada ilaahay iyo tawxiidka ka jeestaan oo diidaan, adinku waana muslimiinte waxaad tidhaahdaan markhaati ka noqda inaan annagu muslimiin nahay. azarqaani wuxuu yidhi shiikheennu shiikhulislaami oo aan ka wado albalqiini wuxuu yidhi alxaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi kulli mid kasta oo ka diin yeesha diinta ahlulkitaabka wuxuu ku jiraa xukunkooda xagga nikaaxa iyo guurka iyo xoolahay gowracaan, maxaa yeelay hiraqal iyo dadkiisu waa roomaankee umana ayan dhalan oo ka mid ma aha bani israa'iil, bal waxay ka mid yihiin kuwa diinta kirishtaanka galay kadib markii diinta ciise la bedelay. rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku magacaabay oo ugu yeeray warqadan yaa ahlalkitaabi, waa dhambaalkuu u diray hiraqal, kuwa kitaabka la siiyo, taasoo tusaysa inay ayaguna xukunkooda ku dhex jiraan. maxaa jira dadka kirishtaanka isku magacaaba oo ay roomaanku ka mid yihiin, nebi ciise looma dirin. nebi ciise waxaa loo diray bani israa'iil keli ah, sida nebi muuse bani israa'iil keliya loogu diray. marka kuwa raacay oo diintooda galay ayuu ibnu xajar sidaas ka yiri, aan soo sheegnay, aan soo akhriyey. marka marka dhambaalka la akhriyey ayuu hiraqal walaalkiis nin uu dhalay caro aad u badan xanaaqay, wuxuuna yidhi warqadda itus. markaasuu hiraqal wuxuu ku yidhi oo maxaad ku suubinaysaa? wuxuu yidhi isagu warqadda laftiisuu ka bilaabay, wuxuuna kuugu magacaabay saaxiibu arruumi oo ah saaxiibka roomaanka. markaasuu adeerkiis wuxuu ku yidhi wallaahi taladaadu way taag daran tahay, ma waxaad doonaysaa inaan tuuro warqad uu soo dhigay nin jibriil u yimaado? ama hadal sidaas oo kale ah ayuu yidhi hiraqal. ama wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa inaan tuuro warqad aanan ogeyn waxa ku dhigan? hadduu rasuulka ilaahay yahay xaq ayuu u leeyahay inuu laftiisa isku bilaabo, run ayuuna sheegay oo anigu waxaan ahay saaxiibka roomaanka oo ilaahay ayaa aniga iyo ayakaba na leh. markaasuu wuxuu amar ku bixiyey in Dixya la dejiyo oo la karaameeyo. Dixya wuxuu yidhi markaasuu subaxii dambe si sir ah iigu soo cidiray, markaasuu wuxuu idhex geliyey guri aad u weyn oo ay ku yaalaan 313 masawir ahna masawirada ambiyada mursaliinta ah. markaasuu wuxuu yidhi dhigo masawiradan oo ii sheeg midkuu saaxiibkaa ka yahay. markaasaan waxaan arkay masawirka nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam sida isagoo hadlayaba. waxaan idhi waa midkan. wuxuu yidhi run ayaad sheegtay. kadib hiraqal siday albukhaari iyo abu nucaym iyo keyrkoodba u wariyeen wuxuu u laabtay ximis oo uu halkaas madaxda boqortooyada roomaanka guri uu halkaas ku lahaa isugu keenay, uuna ku yidhi madaxda roomaankow, haddaad doonaysaan inaad liibaantaan oo aad hanuuntaan oo aad sidaas ebedkiin ahaataan iyo inay boqortooyadiinnu sugnaato oo jirto, nebigan baayaca oo raaca. markaase mar
u wada carareen sida lo duureedka lo'da duurka lo duureedka oo kale oo ay xagga albaabada guriga aadeen markaasay arkeen inay albaabadu wada xiran yihiin markaasuu wuxuu yidhi iisoo wada celiya markaasuu wuxuu ku yidhi anigu waxaan jarribayey sidaa diintiinna ugu dhegan tihiin waxaana idinku arkay waxaan jeclaado markaasay u wada sujuudeen ayna raalli ka wada noqdeen hiraqal gaalnimuu ku dhintay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu hiraqal warqad labaad waa dhambaal labaade u diray intuu joogay tabuuk siduu u wariyey fatxulbaari ugana wariyey ibnu xibbaan wuxuuna ugu dhiibay isla dixya bin khaliifa alkalbiyi uuna ugu yeerayo inuu islaamo markaasuu u dhowaaday hiraqal islaamka u dhowaaday inuu islaamo mase yeelin taasoo tilmaamaysa inuu ku kor taagnaa gaalnimadiisa boqornimada ragga qaarkiis aad ayay u jecel yihiin markuu nebi ibraahim boqorkii baabil namruud ku yiri islaan wuxuu ku yidhi haddaan islaamo boqortooyadada iga dhumaysa oo dadku waa ay nacahayaan nebi ibraahim markuu ku yidhi boqorkii fircoonkii masar islaan sidaasoo kaleu ku yidhi marka boqorradu dadka qaarkiis aad bay u jecel yihiin oo ku dhegan yihiin imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey inuu hiraqal inuu nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam u soo dhigay warqad uu ugu sheegayo uu ku leeyahay waxaan ahay muslim markaasuu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi kadaba bal huwa calaa nasraaniyatihi been ayuu sheegay oo wuxuu ku taagan yahay kirishtaannimadiisa abuu cubayd wuxuu isaguna wariyey inuu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi kadaba caduwullaahi laysa bimuslim been ayuu sheegay oo cadowga ilaahay muslim ma aha hiraqal hadduu dhaagi lahaa hadalka dhambaalka ku qoran oo ah islaan waad badbaadaysaaye oo sidaasaa isaga iyo boqortooyadiisuba u jiri lahaayeen hadduu islaami lahaa laakiin towfiiqda waxay ku jirtaa gacanta ilaahay mana uusan siin warqadda koowaad dhambaalka koowaad wuxuu sala allahu calayhi waaalih wasalam u diray markuu alxudaybiya ka soo laabtay dhammaadka sanadka 6aad ee hijrada dixya wuxuu isaguna hiraqal u yimid oo warqadda u dhiibay bisha muxaram ee sanadka 7aad ee hijrada siduu azarqaani bogga 8aad ee mujalladka 5aad ugu wariyey warqadda labaadna wuxuu sala allahu calayhi waaalih wasalam uga diray tabuuk sanadka 9aad oo duulaanku wuxuu ahaa bisha rajab ee sanadka 9aad ee hijrada siday boqorrada rooma dhambaalkaas u ilaaliyeen azarqaani wuxuu bogga 18aad ku yiri sheekhu lislaami abu alfadli bin xajar allaha tacaala u naxariiste wuxuu fatxulbaari ku wariyey oo la xiriirta xadiidka hiraqal oo ka mid ah bad-u alwaxyi yiri waxaa noo waramay in mid ka badan oo nooga wariyey alqaadi nuuruddiin bin assaa'ig addimashqiyi oo ka wariyey sayfuddiini qalj
oo qalj waa afka turkiga waxay ku tahay waa seefta qalj la yiraahdaa. almansuuri oo ahaa mid ka mid ah amiirada dowladda alqalaawuniya inuu u yimid boqorka maqrib uuna u keenay hadiyad uu u soo dhiibay boqorka almansuur alqalawuun. markaasuu boqorka maqrib wuxuu isaga u diray boqorka faranjiga waa boqorka faransiiska ama roomaanka inuu uga shafeeco arin uu dan ka lahaa. markuu amiirku boqorka roomaanka u yimid wuu qaabilay uuna karaameeyey wuxuuna u soo jeediyey inuu agtiisa joogo wuuse ka diiday siduu fatxulbaari ugu xusan. markaasuu boqorka roomaanku wuxuu ku yidhi waxaan kaaga farxinayaa wax aad u qiimo badan. markaasuu wuxuu u soo bixiyey sanduuq dahab lagu dheehay wuxuuna dhexdiisa ka soo bixiyey weel qalimada lagu kaydsado oo dahab ka samaysan. markaasuu wuxuu ka soo dhex bixiyey warqad xuruufteeda inta badani ay tirtirmeen oo lagu dhejiyey maro xariir ah. markaasuu wuxuu yidhi kan waa warqaduu nebigiinnu sala allahu calayhi waaalih wasalam u soo diray awoowahay qaysar oo sidaasaan isaga dhaxalnaa ilaa maanta. aabbayaalkeenna waxay nagula dardaarmeen ayaguna aabbayaalkood sidaasoo kale kula dardaarmeen ilaa laga gaaro qaysar in intaan warqadan haysanno ayan boqortooyadu annaga naga wareegeyn oo aan haysanayno. marka sidaasaan u ilaalinaa warqadan si aad u adag waana weynaynaa. kiristaankana waan ka qarinaa si ay boqortooyadu weligeed aan annagu u lahaano. wuxuu fatxulbaari ku yidhi waxaana hadalkiisaas sii xoojinaya xadiidka mursalka ah ee cumayr bin isxaaq oo xusay iyo hadalkiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam uu yidhi inii katabtu ilaa saaxibikum bisaxiifatin faamsakahaa famaa yazaalu annaasu yajiduuna ba'san maadaama fi lcayshi khayrun. xadiidka macnihiisu waxaa weeye waxaan saaxiibkiin u dhigay warqad markaasuu haystay oo ma jexjeexin siduu kisra boqorka iiraan u jexjeexay oo kale. sidaasay dadku uga baqi doonaan intay noloshu khayr leedahay. bal arag siday raggu u kala sarreeyaan oo ay u kala duwan yihiin oo u kala dun fiican yihiin xataa markay gaalo wada yihiin. oo midkaana warqadda nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam wuu karaameeyey oo uu ku liibaanay oo boqortooyadiisu u hartay. kisraana boqorka iiraan wuu jexjeexjay warqadda rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo ay boqortooyadu ka guurtay wiilkiisa ayaana dilay. xadiidka cumayr bin isxaaq kitaabka alamwaalu ee abu cubayd wuxuu wariyey xadiid mursal ah ee cumayr bin isxaaq oo yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu dhambaallo u kala dhigay kisra iyo qaysar. markuu kisra warqadda akhriyey wuu jeexjeexay. qaysarse markuu akhriyey ayuu duubay oo meel kore saaray. markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi amaa haaulaa'i fayumazaquuna wa amaa haaulaa'i fasayakuunu lahum baqiyatun. xadiidka macnihiisu waxaa weeye kuwaasna waa la jeexjeexaya waa iiraane kuwaas kalena
waxbaa ka haraya. Dixya iyo Hiraqal. Asuhayli wuxuu yidhi, Dixya markuu Hiraqal u yimid wuxuu ku yidhi, qaysarow waxaa ii kaa soo diray mid adiga kaa khayr badan. Midka isaga soo dirayna isaga iyo adigaba waa idinka khayr badan yahay. Marka isku dullee, waanadiisana yeel. Maxaa yeelay adigu haddaadan isdullayn waxba ma aadan garan. Haddaan lagu waaninna laguma cadaalad falin. Wuxuu yidhi, soo daa. Dixya wuxuu yidhi, ma og tahay inuu almasiixu salaad tukan jiray? Hiraqal wuxuu yidhi, haa. Dixya wuxuu yidhi, haddaba anigu waxaan kuugu yeerayaa midka uu almasiixu u tukan jiray. Waxaana kuugu yeerayaa midka dabiray abuurista samaawaadka iyo arliga, isagoo uu almasiixu ku jiro caloosha hooyadiis. Waxaan kaloo kuugu yeerayaa nebigan ummiga ah sala allahu calayhi waaalih wasalam, oo ah midka uu imaatinkiisa ku sii bishaareeyey muuse, isaga dabadiisna uu ku bishaareeyey ciise. Arrimahaasna waxaad u leedahay cilmi kaaga filan, inaad u baahato inaad indhahaaga ku aragtid ama aad khabar ahaan u saluugtid kaaga filan. Haddaad ajiibtid oo yeeshid yeeriddan waxaad helaysaa adduun iyo aakhiraba. Haddaadse diidid aakhiro waad seegaysaa, adduunkana waa lagula wadaagayaa. waxaad kaloo ogaataa inaad leedahay rabbi boqorrada kibra kala jibiya, nicmada ay haystaanna ka qaada. Markaasuu qaysar warqadda nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam qaatay oo uu labada indhood dhexdooda saaray iyo madaxiisa uuna dhunkaday. Kadibna uu yidhi, wallaahi kitaabna kama tegin oo waa wada akhriyey, caalinna kama tegin oo waan wada waraystay. waxaan khayr ahaynna ma aanan arag. Marka ii kaadi si aan u fiiriyo midkuu almasiixu u tukan jiray, oo waxaan kahanayaa inaan maanta kaa yeelo arrin oo aan markaas berrito arko mid isagaas ka fiican, oo aan markaas kaan hore u yeelay ka noqdo, oo ay taasu i dhibto ayana waxba ii tarin. Marka joog oo sug ilaa aan arrinkan uga fiirsado. wax yar kadibna waxaa soo gaartay oofsashada rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam. waa intaas warka Asuhayli. waana intuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam duulaanka Tabuuk ku jiray oo uu Tabuuk joogay, kadibna uu almadiina almunawara u gadoomay. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.